waxaa maanta shir wada tashiya oo loo wada dhan yahay iskugu yimid golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee North America iyadoo guddigu hore u yeeshay shir hordhaca oo lagu gogol xaarayo ka maanta shirkan wada tashiga ah ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo furi lahaa xafiis cusub oo saldhig u noqon doona guud ahaanba jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku nool North America. ugu horeyntii furitaanka shirkan ayaa halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee North America mudane Suldaan Maxamed Bade. qorshihii aan ku furlana xafiiska waa run inagoo base lahayn wax alla waxaan qabsan karnaa ma jiro. waxa u baahanahay sida hadda uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha jaaliyadu iyo sidii aan mataqaanaa as executive committee aan mataqaanaa ku wada hadalnay in hawshan aan maanta bilowno haddii la yiraahdo. sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee North America mudane Maxamed Shukri oo ku magac dheer Sangab particularly inaanu saari doono culayska sidii aanu ku furi lahayn xafiiskii oo labada week ee soo socota xafiiskeen oo furan oo calankeena ka babanayo inaanu insha Allah aan furo. haddaba dhammaan ka soo qaybgalayaashii iyo waliba guddiga iyo guud ahaanba jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku nool North America gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa bogaadiyay hambalyana u diray xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxqabadyadii u dambeeyay ee ay xukuumaddu ku talaabsatay furitaanka jaamacadda Qabridahar University dhagaxdhigii warshada sonkorta ee Goday mashruuca biyo-gelinta ee degmada Xamaro ee gobolka Nagob. ugu dambeyntii shirkani ayaa ku soo gabagaboobay jawi farxadi ku dheehan tahay. Nadiira Sooyaan, telefishinka caalamiga ah ee ESTV North America Minneapolis.